xildhibaan xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle iyo maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmada Balcad inay ka qayb qaataan howlaha dib loogu dhisayo isbitaalkii degmada Balcad kaasi oo muddo 22 sano burbursanaa si bulshada ku nool degmada Balcad ay u helaan adeegyadii caafimaadka ay u baahnaayeen. bulshada ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo food saartay dhibaatooyin caafimaad darro ah iyadoo degmada aysan lahayn goobo caafimaad ee lagu daweeyo bulshada markii laga reebo MCH yaryar waxaana haweenka iyo caruurta ku nool degmada Balcad saameeyay dhibaatooyinka caafimaad darrada. qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Balcad ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha isbitaalka si iska wax u qabsaa. baaqaya dhalinyarada Balcad iyo kuwa dibadda jiraba inay isbitaalkan ogaadaan inaan macnaa isbitaalkeena dhisano iska wax qabsi ku shaqeynaa maanta oo jeeda intaas oo shaqaalaha ka shaqeynayso meesha intaas oo dhalinyarada ka shaqeynayso intaas oo odayaal ka shaqeynayso xarabna dhalinta kale iyo odayaasha kale inay ku soo daysadaan inay gacanta ka qabtaan isbitaalka dhismihiisa. aniga waa Ali Baanu Nuudi oo ka shaqeynayna isbitaalka degmada Balcad وأصلاً إسكاو عقبس سفح نفتيني إيمال كانوا عديار أونلاين إسكاو عقبس وشغالين كلهم شغالين gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur ayaa ka hadlay dib u dhiska lagu sameynayo isbitaalka guud degmada Balcad wuxuuna tilmaamay in maamulka uu dardargelin doono howlaha horumarineed ee ka soconaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. maanta waxaan noo muuqato iftiin isbitaal in heli doono insha Allah waxaan mahadcelinaynaa qeyr Balcad ay ugu horeeyaan guddigii loo xil saaray hawshan oo ugu horeeyay xildhibaankayna iyo raggi kale ee hawsha la wada ayagana mahadcelinaynaa maadaama si daacad ee dalka iyo dadkaba anfacaysay hawsha u bilaabeen. waxaan leenahay waa idin mahadcelinaynaa madax idinka gaarto. waxaan rabaa inaan baaq u diro jaaliyadda reer Balcad ee ku nool daafaha dunida iyo gaar ahaan gudaha waddanka. waxaan rabaa inay soo xilqaamaan waxa laga shaqeynayo waa dalkoodii waxa laga shaqeynayo waa deegaankoodii waxa wax in loo qabto la rabana waa dadkii ayaga ay ka dhasheen amba dhalay oo walaalaha ahaa. xildhibaan xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabelle ayaa ka warbixiyay muhiimadda isbitaalkan uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan leeyahay cid alle cid maanta gacan ka geys waxaan u baahanahay isbitaal caalami ah inuu inta ka dhismo insha Allah waana dhismay waxaan rajeynaa nin walba oo Soomaali ah nin walba islaam ah nin walba wax garad ah fikirkaaga iyo maskaxdaada waa u baahanahay noola imaw xoogaagaan u baahanahay noola imaw. maanta waxaan taagannahay magaaladan Balcad oo dhaqaalihii waddanka laga kari jiray maanta sidii u taalo waa aragtay jid male qudaarteedii webiga lagu shubaa meel lagu qaada male gabadhii markay umusho dhiigba habeen hore ugu dambeysay gabadha jidka dhiigba ku dhimatay baawur ku dhaxdhaysay gabadha baawur ku dhaxdhaysay midna waa ku dhimatay. degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah degmo qadiimi ah waxaana isbitaalkan guud degmada Balcad uu ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka 1991 iyadoo 22 sano ee la soo dhaafay dadka ku nool degmada Balcad ay la daalaan dhacayeen caafimaad darro iyo goobo caafimaad aysan lahayn degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana haweenkii iyo caruurta ku nool degmada Balcad markii ay timaado caafimaad darro loo soo qaadi jiray magaalada Muqdisho taasoo ay kala kulmayaan dhibaatooyin xagga wadada ah. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.